السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدفك قفك مركة ومسلم نقضو وقول ورادعينيو، لكن نلشو waxay leedahay ahdaaf ka yaryar oo ka sokaysa ay leedahay. waxaa la rabaa ahdaafta yaryar ee ka sokaysa inay u qidmayso ahdaafta waaweyn ee nolosha. yacni wax kasta oo hadafka weyn ka celinaya waxaa la rabaa inuu noqdo waxaan agtaada macno badan aan ka samaynayn. mathalan, tusaale ahaan, inaad xoogsato ama aad shaqaysato ama aad hanti yeelato waa wax badan, noloshana waa laga rabaa. laakiin haddii hadaf kaa dhuminayaan, bal ka waran. ilaahay kuwa qur-aanku amaanay muxuu leeyahay? rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah wa iqaami asalaah wa itaa'i sakaat. koox buu ilaahay subxaanahu watacaala ammaanay, wuxuu ku tilmaamay rag inay yihiin. maxay ku sifooween? rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah. bayc mushtarka iyo lacag kashbasadeedu, lacag la kasbado micnaha kama weecinayso hadafka weyn ay leeyihiin dikri ilaahi, xuska rabbi. waayo dadkaas ahdaaf waaweyn ilaahay ahdaaftooda waaweyn waxaa ka mid ahay inay ilaahay subxaanahu watacaala markasto ay xusaan, wixii ka soo haro inuu agtooda waxba ka ahaan. waayo ahdaaftan yaryar kama qari karaan ahdaafta waaweyn, marnaba macquul ma. waa adiga waxaad iska dhaadhasay. mushkilada badan ee dadka haysato waxaa ka mid ah, ilaahay wuxuuna leeyahay haddaad salaada dhammaysaan fantashiruu fil ardi wabtaguu min fadlillaah. waxaa la yidhi salaada haddaad dhammaysataan ku faafa dhulka rabbi, risqigiisa wanaagsan oo xalaash ayna raadiye. wadkuru llaha kathiiran lacalakum tuflixuun. laakiin dhulku faafka iyo tijaarada, bal ka waran haddee ahdaafta waaweynaa ay ka hor istaagayaan, iyagaa laga hortegaya. kuwaasaa muhiimadda ah. waxaa hadda la arkaa dadka ahdaafta waaweynaa inay is-indhitiraan, waxay yaryaraan ay isku mashquuliyaan ayagoo u guulibo. markaasuu is leeyahay waryaa ceeboobin. warbal ka waran haddii maalinta qiyaam nebi aadan wuxuu dhaldhan lisku horkeeno oo lagu hor ceebeeyo. yowma idin tucriduuna laa takfaa minkum khaafiya. waxaa laga yaabaa inaad is leedahay nolosha waa kugu adagtae fududay. bal ka waran maalinta 50 sano aad tagnaato. anaga meeqsananuna 50 sano, 60 sano, 80 sano, 50 sano intaan naar iyo janno wali isgeeyo hadaad cadaabnaad ka war. kaana 50,000 sana maalin ah. 50kaas kun oo sano ayaad harsanaysaa waxa hadafkaas weyn aad u horumarsatay. oo 50 sano ayaad dhididaysaa. waxaad dhididaysaa inta dembigaaga oo joogay. 50 kun oo sano ayaa dadka qaar waxay harsanayaan carshur raxmaanka, oo ka mid ah dhalinyaro ku kobocday cibaadada ilaahay, madaxdii cadaaladda samaysay, kuwii habeenkii istaagay oo ishooda oynaysay, kuwii gacantooda midig waxay bixinaysay gacantooda bidix aan arkayn, ee mid shahwaatu nafs ka soomay oo naag inay u yeertay ee dhahday kaalay waxaan xun ila sameey oo ka diiday. kuwaasi ayagu waxaa la dhahay carshur raxmaanka ayaa harsanayaan. cadaabkan ee dadkan ku jiraan iyo waxaas ayaga ma u arkayaan. yacni hadafka weyn hadduu lumo, noloshaan soke qiimo ma walahabo. shayaadiinta insiga iyo jinniga ah waxay iskugu tagay hadafkaas weyn inay ka horleexiyaan. adigoo taam ah oo taagan dayeysid
oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryar oo sokay. oo dhalinyaradayna waxaaba usii dheer game la dheelay ay nooc ah ahaada gamekaas. banooni kanaa soo laaday wuu dhaliyay, kanaa soo baasay, kan xalay soo ahay hees damdamtaas la dhegeysto un ayaga balaayi kalaa madaxa ka saaranba aaba la ogin meel ugu imaan. war aan dib isku hagaajino, war aan dib aan nolosha u hagaajino, war aan dib aan isku xasuusano. qof noloshan wuxuu u joogo wuxuu ka qabanayo oo garan la oo cab oo ciyaar oo boodbood oo wax dhal oo xoogso oo daaro dhis oo kan samey. dan muqdishoad joogtaa, bal suuqa muqdisho isdhex taaga. raggii dhisay meeye halkii aadeen? waa daartii xaaji hebel iyo waa daartii in hebel iyo bisaad maqleen. meeye xaajiyadii, meeye in hebel iyo aaw inta ka baxan. daaraha muqdisho aad dhex joogtaan raggii dhisay waa ka tageen, cidna kama noola. halkee joogaan? waa kuwa meelahan aan ku marno xataa iska dhaafeen magac xataa male. arxabaalaha ka baneeya waa asxaabul qubuurkii. xaajinimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo wixii dhammaa lumay waa wada lumeen. adigaan hadda noolne waxaad diyaar u tahay inaad dhisto si dadkaasoo kale xaaji lagu yiraahdo, kadibna meeshaas aad tagdo aaba ka tagto dhismihii waxay weynaayo xaaji kadkaasna oo kugu dambeeya. kuwaasa inaad la mid noqoto rataa. dabcan daday janno u tahay, daday naar u tahay, laakiin anaga agteena waa asxaabul qubuur un. marka waxa isweydiinta leha waxay tahay war maxaan u noolnahay? war dhalinyaroy xageen ku soconaa? nolosheena xagee ku socotaa? jaamacad baan ka baxay, shahaado baan wataa, shaqo fiican baan helay. war waxaasoo dhan kulli halni in jab yar xataa lagaga soo qaado qabriga lagu magdilina waa ka wada tegay kulli. waana maalmo keliya. kam labithtum fil ardi cadin siniin baa lagu weydiin doonaa. labithnaa yowman aw bacda yowmin fas'al ilcaadiin. maalin ama maalin barkeed noloshii oo dhan waxay kula noqon maalin iyo maalin barkeed keliya. markaad kala garan weydana waxaad leedahay war kuwa hala weydiiyo oo wax xisaabin jira. adigana maalin iyo maalin barkeed inay tahay aad kala saari laadahay. ee labada cid ku kala rajaxda hal raadii baad taagantahay. oo markaa noloshii oo dhammeed ma maalin barkeed baad doorata mas aakhiradii weyneydaan dhammaadka lahayn. ayuhal axibba, hadafkaanu raadacaynayno adigaa lagaaga baahan yahay. hadafkaaga meesha lagu gaari lahaa oo cilmiya oo ragnimo ah oo dadaal oo xoogsiya adigaa lagaaga baahan yahay inaad la timaado. adiga jid baa lagugu talagalay. guul iyo guuldaro iyo waxaan wax meel iska soka ah oo wax soka. adiga waxaa lagaa rabaa inay nafta kaa baxdo adigoo rabbigaaga caabuday, adigoo dariiqii saxda ahaa haya. waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada ee kugu soo beeganto inaad ka jawaabi karto oo aad ugu jawaabi karto hadafkii lagu abuuray. wixii aad ku gaarayso kelmadeyda marka waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu iyo idinka qaldamin. ilaahay waxaan ka baryaa inuu nawada sugo. intaasaa jeclaysa inaan soo gudbiyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi.